Kabo aad u qarsoon oo qarsoodi ah oo laga helay qadiimiga Roman IV ee UK. Qodista laga sameeyey qalcadda Roomaanka ee Magna ee u dhow darbiga Hadrian ee Northumberland ee waqooyi bari England ayaa daaha ka qaaday kabo maqaar ah oo aad u waaweyn. Helitaanka, sida laga soo xigtay wararka qaar, ayaa la yaabay cilmi baarayaasha qadiimiga ah. Badbaadinta kabaha lafteeda maaha mid mucjiso ah ama aan caadi ahayn. Xaalado ilaalin heer sare ah oo ay sababaan bayad biyogaleen ah oo leh oksijiin yar waxay ka dhigan tahay in maqaarka iyo walxaha kale ee dabiiciga ah ay ku noolaadaan ciidda qoyan ee qaybtan waqooyiga England. Sannado badan oo ay qodeen hay'adda Findolanda Trust ee Findolanda oo koonfurta ka xigta gidaarka Hadrian, oo hadda Magna, ayaa soo eshatay kabo badan oo Roomaan ah. Natiijooyinkani waxayna siiyeen rikoodh aad u wanaagsan oo ah kabaha askarta iyo dadka rayidka ah ee ku hareeraysan. Kabaha Magna ayaa taagan sababtoo ah qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa weyn. Kabo waaweyn ayaa sidoo kale laga helay Findolanda. Si kastaba ha noqotee, kuwa cabbirkooda la go'aamin karo kaliya eber 4 ayaa weyn. Celceliska cabbirka kabaha ee Findolanda waa 9.5 ilaa 1 eber 2 inchi dherer ahaan, taas oo u dhaxaysa cabbirka kabaha casriga ah ee 7 ilaa 8. Kabaha waaweyn ayaa qayb aad u weyn ka sameeya kabaha Magna. Kabaha ugu weyn ayaa dhererkiisu yahay 1.2 inchi, oo qiyaas ahaan u dhigma cabbir casri ah, oo u ka 1.2 ilaa 1.4. Ururinta kabahani waxay kor u qaadaysaa su'aal degdeg ah oo cad: maxay dadka Magna u haystaan kabo waaweyn? Jawaabaha suurtagalka ah ee su'aashan waxay kor u qaadaan su'aalo badan waxayna keenaan horudhaca qaybta dhexe ee cilmi baarista qadiimiga ah, dood wanaagsan. Emma Frame, qadiimiga sare ee qodista Magna, ayaa soo jeedinaysa: waa inaan u qaadanaa inay tahay wax la sameeyo dadka halkan ku nool, oo leh cago waaweyn, oo laga yaabo inay dheer yihiin laakiin ma garanayno. Fikradan cagaha waaweyn, dadka waaweyn ayaa macno fiican samaynaysa, inkasta oo ay soo jeedinayso in qaar ka mid ah bulshada milatariga ee Magna ay runtii aad u dheeraayeen. Iyo sida xabaalaha Roomaaniga ee gidaarka Hadrian ay ahaayeen kuwo yar oo la qoday ama la darsay, waxaan haynaa macluumaad yar oo ku saabsan sida ay dadku u dhaadheer yihiin qaybtan Roomaanka. Kabaha qadiimiga ah ee Roomaanka. Kabaha Magna si cajiib ah ayaa loo ilaaliyey, waxaana ku jira keliga iyo sidoo kale qaybteeda sare ee jilicsan. Te Findolanda Trust. Fikradaha kale ayaa laga yaabaa inay sidoo kale mudan yihiin madadaalo, si kastaba ha ahaatee. Tusaale ahaan, kuwani ma noqon karaan nooc ka mid ah kabaha barafka ama kabaha jiilaalka ee loogu talagalay in lagu oggolaado lakabyo dheeraad ah oo suuf ah ama dhowr lamaane oo sharaabaad ah in la xidho. Warqad oo lagu xafiday xaalado la mid ah kabaha Findolanda ayaa loola jeedaa hadiyad sharabaadada iyo surwaalka hoose ee loo soo diray qof halkaas deggan oo loo malaynayo inuu ku hayo diiran inta lagu jiro habeenka qaboobaha. Waxa kale oo aan caddayn kale ka ognahay in qaansoleydii Suuriya ay ka koobnaayeen mid ka mid ah cutubyadii degganaa Magna. Nimankan looma baran cimilada dhaxan ee waqooyiga England. Kabahan waaweyn ma noqon karaan iskuday lagu doonayo in lagula tacaalo naxdinta qadhaadh ee jiilaalka Ingiriiska. Mise taa beddelkeeda, kabahani ma yeelan karaan ujeedo caafimaad, laga yaabee inay u oggolaadaan dadka cagaha bararsan ama dadka isticmaalaya dhaymada caafimaadka inay xidhaan kabo? Waa muhiim in la ogaado, ma sheeganayo inaan haysto jawaabaha. Waxaan si fudud u soo saarayaa qaar ka mid ah mala awaalka kuwaas oo sharxi kara kabaha dheeraadka ah ee ku salaysan caddaynta kale ee aan hayno iyo sharaxaad macquul ah oo ku saabsan kabahaas waaweyn. Mala awaalka noocaan ah waxa ay si toos ah ugu jiraan wadnaha habka qadiimiga ah. Helitaanka cusub ee qadiimiga ah ayaa la sameeyaa maalin kasta, waxayna inta badan sameeyaan cinwaano leh weedho ku saabsan khabiirada qadiimiga ah ee wareersan. Inkasta oo luqadani ay kicin karto danta guud, waxay sidoo kale halis gelinaysaa in la siiyo aragti marin habaabin ah anshaxa. Xaqiiqda, cilmi baarayaasha qadiimiga ah ee aniga oo kale ah iyo kumanaan ka mid ah asxaabtayda adduunka oo dhan waxay qabtaan waxay ku salaysan yihiin taxadar, falanqayn ku salaysan caddayn. Caqabaddu maaha khibrad laantayada, laakiin waxay ku jirtaa dabeecadda caddaynta lafteeda. Inta badan waqtiyadii hore ee fogaa waxay ku lumeen waqti, iyo waxa aan soo kabsanayno waxay ka dhigan tahay oo kaliya qayb yar oo ka mid ah sawirka asalka ah. Manihin wax aad uma wareersan maadaama aan si adag u tijaabinayno mala awaalyo badan si aan u gaarno tafsiirada ugu macquulsan. Tarjumaadda kajabyadan waa habsocod adag, sida iskudubaridka kun xabbo ee halxiraalaha jigsaw oo ay ku jiraan qaybo badan oo muhiim ah, sida geesaha ayaa maqan. Mararka qaarkood waxaan haysanaa qaybo sax ah oo aan ku fahmi karno sawirka weyn, laakiin marar kale waxaan leenahay nusqaamo, waana inaan soo bandhignaa taxane ah talooyin kala duwan ilaa caddayn dheeraad ah ay soo baxayaan. Tim Ben, bare wax ka dhiga Roomaan iyo dhaqanka maadada qadiimiga ah, Jaamacadda Akhriska. Maqaalkan waxaa dib looga daabacay wadahadalka hoos yimaada shatiga hal abuurka guud. Akhri maqaalka asalka ah.